Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Somali Youth Scholars. Haddii ay marka koowaad aad soo booqtay YouTube channelkeena, soo dhawaayaan ku leenahay holan. YouTube-kani waa YouTube aan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed oo nagu soo gudbino fursadaha ka jira maanta dunida dacaladeeda. Insha Allah maanta mawduuc yar oo aad muhiim ah isla eegi doonaa oo dad badan isoo weydiiyeen wuxuu yahay wax la yiraahdo visa bulletin wuxuu yahay iyo sidoo u shaqeeyo. Insha Allah linkiyadan waxaa ku ogaani kartid visa bulletin insha Allah qaybta hoose soo dhigi doonaa, qaybta hoose kala soco. Visa bulletin wuxuu yahay intaan hor u galin bal wax yar hor dhacaadin siiyo. Mesela ka soo qaad DV lottery apply gareysay. Insha Allah waxaan rajaan dadka apply gareeyay natiijooyinka waxay soo bixi doonaan sanadkan 2022 bisha shanaad. Insha Allah wax yar ka haray dhamaantiin guul ayaan idin rajayn doonaa iyo akhbaar ku farxdin. Then marka waxa way lottery xareysay wuu ku soo baxay. Markuu ku soo baxay waxaa jira format la dhaho DS260 oo aad buuxin doontid. Formkaas marka buuxisid oo aad dirtid muddo adiga 2 bil 3 bil ka bacdi waxaa heli doontaa email oo ku soo dhici doona oo ku dhigi doona hambalyo. Formkaaga waxaagana waa ku saxan yihiin. Then waxaa sugi doontaa case numberkaaga intuu diyaar ka noqonayo interviewga xilligiisa intuu la gaaray current inta uu ka noqonayo waxa way waa sugaysaa case numberka sugaysaa ilaa uu current uu ka noqonayo. Then markii wax noocaas emailka saayshid markii su'aasha waxay tahay numberkii case numberkii si ku ogaanay inuu kadri current uu uu xadir uu yahay in interviewga aan amro gormay sidee ku ogaana. markaas waxay imaanaysaa wax la dhaho visa bulletin marka waxa ku ogaanaysaa numberka inuu current uu xadir hadii uu la joogo xilliga interviewga iyo in kale. marka waxaa sameynaysaa website-kaas ay jira booqanaysid bil walbo waxa way number ay soo galeen case number. marka lambaradaas meesha ka eegaysaa lambarkaaga ka soo qaad adiga waxa tahay lambarka 200 ka soo qaad. bishan waxay soo dhijiyeen lambarka 100 ilaa iyo lambarka 500 inta u dhaxayso lambaradaas tiradaas inta u dhaxayso lambarada ayaa waxay current oo interview inaan la maran safaarada ay tagaan diyaar wa. marka adi maadaama lambarka 200 uu yahay macnaheedu waxa way current waa lambarkaaga waxa diyaar u tahay in interview lagu mariyo oo aad processka aad alaasa u sii martay visa-ga heshid. marka sidaas ku ogaanaysaa visa bulletin waxa loo waa sidaas systemkaas uu shaqeeyo. marka bil walba kiiskiisa u socod hadda sida rajeynay dadkii DS 2021-2022 hadda wuxuu maray visa bulletin-ka 21,000 uu maray wadan walba. marka way soo galeen qaarad Afrika visa bulletin wuxuu maray 21,000 Asia wuxuu maray 8,300 Europe 3,500 North America wuxuu maray 8 only. then sidaas ay u socotaa. mesela Africa camal Egypt camal waxa way 12,000 uu maray case numberkooda sababtoo Egypt camal waxa way dad aad u far badan waxa way xareey oo u soo bax iyo waxa si qaas ah waxa visa bulletkooda loo soo daay. laakiin Soomaali camal aniga inta ku jirna qaarada Afrika marka tiradaada inta ka fiirsaday marka lambarkaada maybe 1,000 tahay maybe 5,000 tahay marka waa fiirinaysaa. marka aragtid lambarka inuu current uu yahay waxa sameynaysaa documentiyada laga raba si diyaarsanaysaa sababtoo ma ogaani kartid waqtiga email ku soo dhici doon oo balanta waqtigaas leedo lagu dhihi doon ma garan kartid. marka in diyaar garoodo documentiyada ina si diyaarsatid. then sida rajana ina fahantaa rajana visa bulletin wuxuu yahay. haddii waxyaabo kale u baahan tahay aan video ina ka sameeyay jiraan fadlan qaybta comment igu reeb. haddii wax caawinaad visa green card lottery qusaya ay jiraan fadlan Telegram group ay alayna Telegram groupkaas ku soo bir insha Allah linkiyada qaybta hoose soo dhigi doona. visa bulletin meesha lagu ogaado linkiga soo kala qaybta hoose soo dhigi doona insha Allah. videoga inta soo daawanayso wala jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.